kahor islaamka Soomaalidu maxay caabudi jireen diin noocee ah ayayna haysteen waxa la sheegaa bulshooyinka Kushitiga ee badi ku nool Geeska Afrika inay lahaayeen boqortooyo la yiraahdo Kush boqortooyadan ayaa fidsanay dhul balaaran ilaa webiga Niil diinta dhulkaas ka jirtana ayaa ahayd diin la yiraahdo Waaq waxayna dadku badi caabudi jireen ilaah la yiraahdo Waaq macnaha ereyga Waaq ayaan ahaa ilaaha samada waxa uu weynaa ee dadkaas aaminsanayeen ayaa ahayd inuu jiro ilaah xagga samada jooga lahaana astaamo ah dayaxa qoraxda iyo xidgaha Soomaaliduna waxay caabudi jireen ilaah la yiraahdo Waaq maadaama diinta islaamku aysan soo gaarin xilligaas dhulka Soomaalida haddaba Soomaalidu xilligaas marka ay rabteen ay alla baryaan waxay bari jireen Waaq oo ay aaminsanayeen inuu joogo samada tusaale ahaan marka ay jirto abaar oo ay rabaan inay baryaan Waaq kadibna uu roob yimaado waxay u bixin jireen xilligaas barwaaqo oo loola jeedo roobka ama naxariista Waaq haddaba diinta Waaq ayaa xagga qarinimada kelinimada Ilaahay kaga dhow diimihii kale ee hore qaadashada fudud ama sida degdeg ah ay Soomaalidu u qaadatay diinta islaamka waxa la xiriirin karaa in islaamnimadu ay wax badan kala sinnayd diintooda Waaq sidaasna ay keentay in ay aqbalaan diinta islaamka maadaama diinta islaamku la timi aamnaad ku dhisan qirida Ilaaha leh koonkan oo dhan magaalooyin badan oo dhulka Soomaalida ah ayaa nisatay ilaa hadda magaci Waaq sida Ceel Waaq Abud Waaq Waaq oo ah goob ku taal buurta Gacan Libaax iyo Waaq Dariya oo ku taal gobolka Sanaag